adana soo walaalada la saaday dadku waa walaale marka dadku markay walaaliyiin saaxiibtinimada iyo walaalnimadu kala laba macno ayay leedahay marka anu ma oranayo waa saaxiibiyo labadu waa saaxiibo anu waa walaalaan leeyahay waa ku isu dhimanay weey wanaaga Soomaaliland waa wanaaga Djibouti wanaaga Djibouti waa wanaaga Somaliland Djibouti iyo Somaliland waxay leeyihiin xiriir qoto dheer oo wada dhalasho dhul wadaag waxay ku wada nool yihiin mandaqadan waana dad walaal ah oo xuduudaha adduunku iyo wadamada qaramadu ay kala leeyihiin oo ay kala kala xidhay laakiin sida kale dad walaal ah dad reer Djibouti ah reer Somaliland dad reer Somaliland oo reer Djibouti labada dal ee sida jaarka oo ah labadooda ummadood ay labada dhalasho wadaagaan mararka qaarkood waxaan leedahay Djibouti iyo Somaliland waa laba dal oo aan la kala sooci karin dhexdoodana la iman karin waa xiriir wada dhalasho dhiig iyo dhaqanba marka waa xiriir taariikh aad u qoto dheer oo fac weyn oo muddo hore ka soo bilaabantay ay ka dhaxayso adiguna intii aad halkan joogtay waxaan u malaynayaa inaad meelihii aad booqatay aad ku aragtay xiriirku intuu leeyahay inaad aragtay dad reer Djibouti oo magaalada Hargeysa caasimadan hanti ku leh degan ka shaqeysta sidoo kale dad reer Somaliland sidoo kale reer Djibouti gobolada kale dalka markaad martana waa saa isla lamida dadkii reer Djibouti baa joogo ka shaqeysanaya degan markii halkan joogaan waa dad reer Somaliland sidoo kale dhalashada Djibouti bay leeyihiin marka waa xiriir aan kelmado iyo hadal kooban oo waqti kooban lagu yiri aan lagu soo koobi karin runtii labada dhaqaale way isku xiran yihiin dhaqaalaha Djibouti wuxuu ku xiran yahay dhaqaalaha Somaliland dhaqaalaheedu wuxuu ku xiran yahay dhaqaalaha Djibouti waayo markaad eegto dhulku intuu isu jiro magaalada loo yacday markaad joogto 17 kilomitir baad ayaad Djibouti u jirtaa ay ku jirtaa caasimadu sidoo kale dad ganacsato ah ayaa labada dhinac ee Somaliland iyo Djibouti ba ka ganacsanaya sax alaabtooduna ay marsada Djibouti ta barbaraba ay ka soo dagaan ganacsi Somaliland soo dhex maray baa Djibouti u gudba ganacsadayaal fara badan oo alaabtooda marsada Djibouti kala soo degay baa Somaliland soo gudba markaad eegto ganacsigu halka uu joogo iyo dadka sida wax uga dhaxeeyaan waa sida labada dhaqaale ay isku xiran yihiin ay isku tiirsan yihiin labada marka dhaqaalaha Djibouti iyo dhaqaalaha Somaliland ka hadlaysana haddaad islaamid walba gaarkiisa uga mahadli karaysid waayo dadkani sidii nolosha iyo dhaqankaba u wadaagaan iyo afkaba ay ganacsigana u wadaagaan dadkuna markay ganacsi wadaag yihiin dhaqaaluhu ka dhaxeeya marka dhaqaalaha Somaliland xumaada saameyn buu ku leeyahay Djibouti dhaqaalaheedu hadduu horumar iyo hadduu xumaadana saameyn buu ku leeyahay Somaliland marka wax la qarin karaya maaha markii dalkan aad ogeyd 29kii wadankan uu baabay ganacsigu uu baabay wax walba taxadka ayaa laga soo bilaabay laakiin nasiib wanaag ganacsato reer Djibouti baa sidoo kale reer Somaliland ahayd marka markii ugu horeysay dadkaasi halkan bay yimaadeen ganacsigooda bay ka bilaabeen iyaguna way faa'iideen Somaliland waxay u noqotay marka in dadkoodii oo dhinaca kale xadka uu joogay inay marka dalka dhismihiisa iyo ganacsigiisa ay ka qayb qaateen Allah raxmada Ibrahim Dheere iyo imkada isagu waa maanta waa inaga hooseeyaa waqtigu adag ayuu xaajigu xaqana ganacsi weyn buu ku lahaa halkana dadkii 29 markii soo noqday ganacsigooda uu soo fiday ee halkan yimi ayuu ahaa inta soo ganacsado oo inuu reer Djibouti ba halkana ka shaqeysta marka xiriirka ganacsi ka dhaxeeya Djibouti iyo Somaliland waa soo jireen waa mid isku tiirsan waa mid weligii jiri doona qofka is yiraahdaa labada ummadood mid bagaarkeeda uga hadal dhaqaalahooda ama noloshooda na qofkaasi waa qof dalnuusan buu noqonaya marka waa arrin mar walba marka dhaqaalaha Djibouti ka hadlayso dhaqaalaha Somaliland ka hadlay dhaqaalaha Djibouti ka hadlayso dhaqaalaha Somaliland ka hadlay dhaqaalaha mandaqadoo dhan baa isku xiran iska badaa Djibouti Somaliland laakiin Djibouti Somaliland way ka sii xaq jiraan wallahi dadkani markay wada dhalasho gaadho dadka ummadaha adduunka qaar waxa isu keeno saaxiibtinimo labada wadan waa saaxiibad maqli Djibouti Somaliland boorkiisa saaxiib moorkiisa waxaan soo walaalada la saaday dadku waa walaale marka dadku markay walaaliyiin saaxiibtinimada iyo walaalnimadu kala laba macno
ayay leedahay marka anu ma odhanayo waa saaxiibiyo labada waa saaxiibo anu waa walaalaan leh waa kuwiisu dhimanaya weeye wanaaga Somaliland waa wanaaga Djibouti wanaaga Djibouti waa wanaaga Somaliland marka waxa weeyaan waa xiriir qoto dheer oo aad u fog oo walaalnimo ah oo wada dhalasho weeye dadka reer Djibouti xilliga kuleelaha xagaaga oo soo xagaa baxaan waan reer Djibouti soo xagaa baxay baa lagu oranayaa dadkaasi dad iska maran oo iska yimi ma hadda qoxunti ma hadda waa dad dhaqaalahoodii la yimaadaan guryo kireystaan waxbay iibsadaan wax guryo dhistaan faamiliyada halkan jooga way hadiyado iyo wax walba nolosha la wadaagaan marka soo eegto waa dadka reer Djibouti xilligaas xagaaga wadamada Djibouti iyo Soomaaliland waxay u baahan cilmi baaris inay ka sameeyaan dhaqaaluhu sidoo u kor xilliyada laakiin waxaan ogahay dhaqdhaqaaqa kala kireysiga guryuhu irku isku shareeraa xilliga xagaaga sidoo kalena haddaynu qaadano saadaal ah inuu qoyskiiba xoogaa lacaga oo $1,000 uu kusoo talagalay intuu Hargeysa joogo inuu isticmaalo lacagtaas waa lacag dhaqaalaha Soomaaliland lagu mudeeyay marka waxtar weyn ayay runtii u leedahay marka xagga dhaqaalaha laga yimaadana isbooqashada xilliga xagaagu waa dhaqamadii oo waxba la kala baranaya afkiiba maartay lahjada uun dadku lahjada uun marka afariga iyo afcarabiga laga yimaado oo labaduba way yimaadaan iyaguna moogtahay laakiin dadka Djibouti degan af Soomaaliya ku hadla oo dadka canfurta af Soomaaliya bay naga badiyaba marka dialogue ba yara bedelan laakiin sida kala marka dadkii waxbay kala baranayaan dhaqan bay wadaagayaan way walaaloobayaan xiriir baa sameysmaya saaxiibtinimo waa sameysmaya xiriirnimo waa sameysmaya oo xilliga xagaaga waa laga yaabaa dablo badoori Djibouti halkii inoo badoori Djibouti halkii inay halkan maartay la xididaan oo maartay marka arinta xagaagu maaha uun dad kuleel ka soo carray oo qabow soo doontee waa ummad isa sugtaa oo sanadkiiba hal mar isbooqata dadka reer Soomaaliland asaasi la mid ah dad reer Soomaaliland aad qabowga neceb moogtahay arinta lagama hadlo wariye waxa doonaya Djibouti arinta gaarsiiso dad baa yara neceb qabowga oo halkan qabowga anaga dabayl buu leeyahay haraq buu leeyahay marka dad badan baa iska neceb marka dad badan baa iyaguna Djibouti taga oo kuleelka كنا وكسو كلها كسو يعيان أنا قولها كتشوف ترى قبول كي يعنا بقى يقولوا شبتي تجان يوم بربريت تجان وحنا كل شيء يقول إما كا أرنتا جيبوتي يو يهرجيسة واسدي يقول لبح حافظون فلايتكو وعشان يلعتن مرد أما صدّن مرد كل بوا هو ده كوعرنت مركب معني ذو حوي هالك ما كله فكرة جيبوتي نو شقتي كرا جيبوتي نكسر له فكرة هرجيسة مش غاي مكرا فلايت كليحتنا وهالك نوص عننا إن شاء الله إن فلايتسكو أي شوكتن نقدر أو أنتو قفكي شركة لها كسر دولة جيبوتي وهرجيسي مادو وشركة سي قبصدا ما جنع سي حساب صدو إنه فلايت كقلبت بحياة راعو إن شاء الله ديارنا أنا وان إن قيمة لتشبيه وديارنا إير جيبوتي معموله هذا مركي على كل ماي جيبوتي ما كان بيكون بغضي وحيالي وقول بدنا كلام حكم قيمة إن لتشبيه فلايت كان الله بديو واي مركا فلايت كيسو مارت كده حياة هرجيسي جيبوتي ونقضه مثل لايا بلا وقت ديارنا وقت كده كباغن حلي كده كنت ما ده حلي كده كدوشة قيمه لتشبيه hubaal waxa in dad fara badani labada nololoodba ay dhaqaale gelin doonaan Djibouti maal gashan doonaan halkana maal gashan doonaan Djibouti nolol ka samaysan doonaan halkana nolol ka samaysan doonaan isku xidhnaanshaha iyo walaalnimada dadkan ka dhaxaysan inay si weynaan doonto iyaduna marka ay maartii si xoogaysan doonto inaad nootimi oo soo booqatay oo waan ka xumahay inaad galabta baxayso marka wato ogtiisa guteena nabadgeliyo إن شاء الله مركز نوصل نقول حاجة إنه إيمان مركز سامو إن شاء الله سوي لجوسو دوين دونا مركز الله كنا بديهلو حرمت التلفزيون كا يراديها تشوفتنا هذه يضمنوا مهنقية إني سومالان يمدين ويبرامج كديارين محرتشين يا وضدك ذكر تشوفتي الدقن سومالان إن القاضي وريتشوفتها يوغاندو ذكر تشوفتي سدي سومالان وقولوا لي قارهان عاصمة هرجيسة وحنصدق كلا وقفة إيدي سنة يا فرصدا إن كم هذا sidii qiimaha bilgaha sharafta iyo gobonimada lahayd ee Djibouti ay noo soo dhaweeyeen markaan dhawaan booqanay magaalada Djibouti runtii ma ilaawi doono walaalnimada ilaahay idinkiina xiriirka walaalnimo iyo xiriirka ka dhaxeeya labada magaalo Djibouti Hargeysa uu xoogaysan doonaa qataan horta inaan aad iyo aad uga mahadnaqo ayaan doonayaa dadka reer Djibouti waxaan runtii uga daray halkan salaan ka timi shacabka Hargeysa oo ku socota shacabka Djibouti ولا أو مرتلانتا سو كدتشوم سو ولا لماذا قطة الدار ولا لاشة له ريتش بوتي يريح جيس مارتي
ka dhaxaysa intaasaan u diri lahaa ilaahayna waxaan ka baryayaa in labadan ummadood walaalnimadooda iyo xiriirkoodaasi ay quweystaan sii adkaadaan kuwii maaragtay nafyo nololba wadaaga in ilaahay ka yeelo insha allahu tacaala